Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar dhanka cirka ah oo xalay ka dhacay aagga Buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland, halkaas oo ay ka socdaan howlgalo ay Puntland ku qaaday xubno ka tirsan kooxda Daacish ee ka dagaalama Buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland si looga saaro deegaanadaasi. Wararka ayaa sheegaya in duqeynta oo ahayd mid si aad ah loo soo qorsheeyay lagu beegsaday warshadda qaraxyada ku farsamaysan jireen kooxda Daacish, sida qoraal uu soo saaray taliska howlgalka ciribtirka ah. Ururka Daacish ee maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntan lagu burburiyay warshadda qaraxyada oo sidoo kale samayn jirtay biraha gawaarida ay adeegsato kooxdu. Sidoo kale waxaa qoraalkan lagu xaqiijiyay in la dilay dhammaan xubnihii halkaasi ku sugnaa goobta lagu duqeeyay oo ahayd bartilmaameed muhiim u ah. Duqeynta xalay ka dhacday ee lagu fuliyay howlgalkan lagu beegsaday koox ka tirsan ururka Daacish ayaa deegaanka waxaa lagu magacaabaa Shabaab Calmiskaad. Waxaa lagu gubay warshaddii Daacish qaraxyada iyo biraha gawaarida ku samayn jirtay iyadoo halkaasi lagu dilay xubnihii ku sugnaa, sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntland. Puntland waxaa kale oo ay intaasi ku dartay in ujeedka uu yahay in ka hortagga xirfadda maleeshiyaadka kooxda Daacish si aysan hoos ugu soo degin buuraha hoostooda oo ay haatan ku dagaalamayaan labada dhinacba. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa weli kacsan waxaana sii xoogeysanaya dagaalka u dhexeeya maamulka Puntland iyo dagaalyahanada ururka Daacish, iyadoo barbar socdaan duqeymo ay fulinayaan qaar ka mid ah saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ee ay ku jiraan Mareykanka. Waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa sheegtay in dagaalkan ay ugu toognaatay ururka Daacish, sidoo kalena firxadka dagaalyahanada ururka Daacish ay galeen buuraha Somaliland iyo sidoo kale koonfurta gobolka Mudug.